taa waxaa macnaheedu weeye waxaan faraynaa oo u sheegaynaa hogaamiyiinta siyaasadeed ee waddanka, madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo labada gole, iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedada. xilka waddanku markaan idinka ayuu dhabta idin saarnaa. waxaan idinku hambalaynaynaa idinkoo aan beesha caalamka iyo dowlado kale idin soo faragelin inaad isu timaadeen ood wax badan isla garateen. waxaan isleeyahay waa tallaabo horey loo qaaday. waxaan isleeyahay waa guul ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay. arrinkaa inuusan dib u noqon ee horey loo sii wado iyadoo aan cidina ina dhex gelin inaad ku dhammaysaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo geli jiray hoos baa loo dhaqaa. faraqa idin dhexeeya inaad ku dhammaysaan wada hadal. sharaf iyo guul baad joogtaan haddii intaad isu timaadaan sidaad horeyba ugu heshiiseen tixraacii dowladnimo aad isla gaadheen, aad Muqdisho ku gaadheen, Dhuusamareebna ka soo bilowday. kaa waxaan idin leeyahay waan idinku boorinaynaa, mana aqbalayno siyaasiyiinteenu inuu marxaladda waddanku marayo inuu dib halkan heerka uu marayo inuu dib uga noqdo oo uu burbur iyo dhibaato iyo ummaddu kala qaybsanta inay dib ugu noqoto. arrinkaa haddaanu nahay duubabka Soomaaliyeed ma aqbalayno. runtiina waxaan mar kasta idinku garab taagannahay wax kasta oo wanaagsan oo maslaxadda ummadda meel kastay joogto iyo horumarkeeda. arrinkaa waan idinku garab taagannahay. waxaanuna diidannahay wax kasta oo wuxu dhimi karaa wadajirka iyo midnimada iyo horumarka iyo iftiinka dowladnimo oo marba marka ka dameeya kor u socda. qodobka markaan intaa kaga gudbo, qodobka labaad waxa weeye dowrka oday dhaqameedka. waxaan u malaynayaa salaadiintii iyo ismadii duubabkii halkan ka hadlay oo garaad jaamac iyo ugaas cabdullaahi faracade iyo raggii ka hadlay ayaa aada ugu dheeraaday. Soomaalidu waxay tiraahdaa hangool maalin howleed baa la doonaa. waxay noqdeen duubabku sidii loo sheegay iyo wadadkii banaadiriga ahaa inuu xildhibaankiisi yiraahdo kaxay isagu soo qoray. waa nasiib darro weyn. taa intaa markaan uga gudbo, ma aqbali doono inaan gacmaha ka laabano oo aan niraano sidii la doono ha la isaga socdo. wixii nagaga aadan hadda iyo wixii ka dameeya duubabka Soomaaliyeed wuxuu ahaa waxaan ilaaway suldaankii raggii ka hadlay. arrinkaa waxaan leeyahay hadda iyo wixii ka dameeya duubabka Soomaaliyeed way soo jeedaan. waxay mas-uul ka yihiin shacabka iyo wixii baahidooda ah. sidaa la ajligeed waxa weeye wax kasta oo ay ku dulman yihiin hadda wixii ka dameeya ma aqbali doonaan. taa marka waa inay ku darsadaan xisaabta siyaasiyiintu. duubabkuna meel kastoo joogaan waa inay arrinkaa ku baraarugsanaadaan, inay dowrkooda qaataan oo maslaxadda iyo horumarka iyo waddanka nabadiisa inay xil weyn iska saaraan insha Allah. qodobka saddexaad waxa weeye waa maqaamka magaalada gobolka Banaadir. waa matalaadii gobolka Banaadir. gobolka Banaadir waa hooyadii waddanka ama jamhuuriyadda Soomaaliya, magaalada Muqdisho. aniga awowgay wuxuu yimi oo halkan la keenay 1927 halkan uu ku aasan yahay. aabahayna halkan uu ku aasan yahay. intaasoo awowayaashayna way ku aasan yihiin iyo waalidkay. inaan wax ka baadi doono dadka ay waajibka ku tahay baan ka mid ah. dadka ugu horeeya oo raadinayaan ka mid ah. waxaan leeyahay marka ciddii ay si kale ugu muuqato gobolka Banaadir waa gobol la wada degan yahay oo la leeyahay oo sidaas Soomaaliya oo dhan muraayadiisiya. cidda diidan waxaan leeyahay yaan loo arkin waxa aad diidan tihiin waad ka hadli kardhaan oo waxa weeye yeeyan noqon. Soomaalidu waxay tiraahdaa haanta marka caanaha la lulayo, caanaha marka lagu shubo oo gabadha gaarida ay caanaha lulayso, markay caanaha ruxdo
haanta salkeeda gurteeda iyo muxuu ahay furka ama agaanka annagu agaan baan noqon haruubka bay marna gadaal ugu dhacdaa marna horay ugu dhacdaa marka waxay tiraahdaa kugusan iyo kugusan markaas waxa ka soo baxa burcad iyo muxuu ahay subag waxay ku fiican tahay kugusan iyo kugusan gobolka Banaadir iyo dhammaan wadankeena oo dhan arrinka kale waxa weeye matalaada anigu inaan mar labaad baadi doono sharafta aan ku helo ama karaamada aan Banaadir gobolka Banaadir aan ku leeyahay meelaha aan ka imi kuma lihi sida la ajligeed mar kasta waxay ugu tahay waxaan leeyahay waa arrinkaasi arrin mudan in la baadi doono gobolka reer Banaadir marka iyo dadka reer Banaadir oo aan ka mid baanahay waxaan leeyahay gobolka Banaadir yuusan noqon sida Marka iyo Baraawe iyo magaalooyinka la midka ah Muqdisho ayay noqon لأنه هو مقالة لو وده دقي أو لو وده دستي أو لو وده ليه وإن يمرك عيد ولبابا تحقلين إيو قيمين إيو شرف أيشا أيكو هشا وحيالها لقى هدلي وهذا قرات كويري وادو المنهي dad badan oo sidaas oo kale u cabanaya way jiraan waxaan duubabka hortooda halkan leenahay waa inaynu baadi doonaa cid kasta oo dulman oo xaqeedu maqan yahay laanahu ilaahay weynaha dulmiga naftiisu ka xarimay aadana adoomadaysana uu ka xarimay dulmiga marka inay dadku hantidoodii iyo wixii ka maqan inay helaan insha Allah taasuna waa arrin waajib inagu ah dhamaanteed culimadii baa joogta waliba Sheekh Abdi Xayi halkan aan isku baranay Sheekh Ali Dheero oo hadda uu gaboobay waa loo baahnaa maxkamadaha in la fariisiyo oo dadka kuwii mujrimiinta gacmaha laga gooyo tuugada iyo muxuu xukunki